بسم الله الرحمن الرحيم قلب ونكسن halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha barnaamijkeena galabta waxaan xoog ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo tababarayaal ku dhow inay shaqo cusub ka helaan horyaalka Premier League fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe like saar asxaabtaadana la wadaag mahadsanid aynu ku bilaabnay kooxda Tottenham ayaa wada hadallo meel fiican maraya kula jirta kooxda reer Jarmal ee Borussia Mönchengladbach iyada oo doonaysa weeraryahankooda Marcus Thuram. Kooxda reer England ayaa nambarkeeda koowaad ee suuqa kala iibsiga ka dhigatay saxiixa weeraryahan iyaga oo shaki ka qaba in ay lumin karaan xilli ciyaareedkan weeraryahankooda Harry Kane. Wiilku uu dhalay daaficii hore ee kooxda Juventus iyo xulka Faransa Lilian Thuram ayaa noqday weeraryahanka kooxda Spurs ay doonayso in garoonkeeda ay keento, waxaana RMC Sports ay daawacaysaa in daayarka reer Faransa uu diyaar u yahay inuu ka hayaamo horyaalka Bundesliga ee Jarmalka xagaagan. Kooxda Mönchengladbach ayaa 2019 xidigan kala soo wareegtay kooxda reer Faransa ee Guingamp, waxaana xidigan si fudud ula qabsaday horyaalka Jarmalka waxa uuna isfahan wacan oo qalqal ka abuuray Jarmalku la yeeshay weeraryahanka isku wadanka yihiin ee Alessandro Plea. Tottenham ayaa heli doonta weeraryahan koronto ah haddii ay soo gabagabayso saxiixa xidiga reer Faransa. dhinaca kale kooxda isla magaalada London ka dhisan ee Chelsea ayaa dhigeeda AC Milan ka heli doonta qiimo dhan 25 milyan oo pound iyadoo daaficida amaahda ku qaatay garoonka San Siro ee Fikayo Tomori oo si rasmi ah ugu biiri doono kooxda reer Talyaani. Kooxda Milan ayaa haysatay dooqa ah inay si toos ah ula wareegi karto laacibka reer England haddii ay bixiso 25 milyan oo pound, waxaana naadiga Rossoneri ay ku qancday qaab ciyaareedka daayarkan waxayna diyaar u tahay inay bixiso qiimahaasi. Tomori ayaa bishii Janaayo ku biiray San Siro waxa uuna qaab ciyaareed waxaan soo bandhigay intuu joogo Talyaaniga, waxaana kooxdiisa ka caawiyay inay u soo baxdo koobka Champions League xilli ciyaareedka dambe. bishan horaanteeda ayay ahayd markii la soo tabiyay in Milan ay diyaarisay wax walba oo ay ku dhameystiri doonto saxiixa daafacan, waxaana qabiirka suuqa kala iibsiga ee Fabrizio Romano uu xaqiijiyay in Milan ay toos la wareegi doonto xidiga kooxda Chelsea. Kooxda Rossoneri ayaa sidoo kale wada hadallo dhigeeda Chelsea kala furi doonto saxiixa laba ciyaaryahan kale kuwa oo kala Hakim Ziyech iyo weeraryahanka reer Faransa Olivier Giroud. dhinaca kale khadka dhexe ee kooxda Manchester City Ilkay Gundogan ayaa wararka sheegayaan inuu ka warsugayo in kooxda reer Spain ee Barcelona ay dalab ka soo gudbiso. ninka reer Jarmal ayaa dib u dhigay wada hadallo ay kooxdiisa ku doonaysay inay heshiis cusub kaga saxiixdo. sida ay qortay jariirada The Sun, laacibka khadka dhexe ayaa dib u dhigi doona go'aankiisa ah inuu saxiixo heshiis cusub isaga oo waqti siin doona kooxda Blaugrana si ay dalab uga soo gudbiso. xidigan ayaa heshiiskiisa uu ku joogo garoonka Etihad waxa kaga harsan 2 sano, waxaana naadiga Sky Blue ay doonaysaa in laacibkan garoonkeeda ku sii ceshato muddo dheer, balse haddii ay ku qanci waayaan fikradda ah inuu ku nogaado England, kooxda ayaa diyaar u ah in xidigan ay lacag ka samayso. Gundogan ayaa ku faraxsan joogista Premier League balse waxa uu ka sii jeclaan lahaa inuu u hayaamo Camp Nou. dhinaca kale Barcelona ayaa sameysay isku day ay doonayso laacibka khadka dhexe ee kooxda Roma Lorenzo Pellegrini. kooxda BARCA ayaa baadikob ugu jirta xidig khadka dhexe ah oo ay kooxdooda ku xajiso kadib guul dareysigoodii saxiixa xidigii hore ee kooxda Liverpool Jorginho Wijnaldum oo doortay kooxda Paris Saint-Germain. Barcelona ayaa tartan kala kulmaysa kooxda Liverpool oo iyagaba raadinaya bedelka xidigooda reer Holland, waxaana sidoo kale macquul ah in kooxda reer Talyaani ee Atlanta ay u soo bandhigtay heshiis 24 jirkan khadka dhexe. Pellegrini ayaa mar walba oo suuqa Formula la xiriirinayay inuu ka hayaamayo kooxda ka dhisan caasimadda Talyaaniga ee Roma, balse imaanshaha Jose Mourinho ayaa ku qasbi karta inuu sanadkan ka baxo laacibka khadka dhexe. dhinaca kale xurgufta dhex taala kooxda reer Faransa ee Paris Saint-Germain iyo kooxda reer Spain ee Barcelona ayaa meesheeda ka socota. kooxda Le Parisien ayaa wadagumaadkii ay ku heysay Camp Nou iyada oo markani doonaysa saxiixa weeraryahanka Barca ee Ousmane Dembele. xidiga reer Faransa ayaa heshiiskiisa ku egyahay 2022, waxaana PSG ay sameynaysaa isku day walba oo ay ku hor istaagi karto inuu saxiixo heshiis cusub oo ku sii nagaanayo Spain. kooxda reer Faransa ayaa goordhaweed meel dhexe ka qabsatay khadkii dhexe ee reer Holland Wijnaldum oo la aaminsanaa inuu ku biiray Barcelona, waxaana sidoo kale xagaagii ina dhaafay ay wada hadal la furtay xidiga Barcelona ee Lionel Messi oo diyaar u ahaa inuu ka hayaamo Barcelona. maamulka Blaugrana ayaa fahmi la waxa ay damacsan tahay PSG oo wixii Barcelona hamisaba meel dhexe u taagan. dhanka kalena kooxda Everton ayaa ka fikiraysa inay shaqadooda kooxda u dhiibto macallinkii hore ee kooxda Liverpool Rafael Benitez kadib markii ay lumiyeen macallinkooda reer Talyaani ee Carlo Ancelotti
oo ku laabtay kooxda Real Madrid. Benitez ayaa iska casilay shaqadii uu ka hayay kooxda reer Shiine ee Dilian markii qoyskiisa ay dhibaato maskaxiyan ah ka qaadeen dhibaatada uu wadankaasi ku hayay cudurka coronavirus. Macalinka reer Spain ayaa haatan diyaar u ah inuu qabto mid ka mid ah shaqooyinka Premier League halka uu horey ugu soo maamulay kooxaha Liverpool, Chelsea iyo Newcastle United. waxa ay noqon doontaa fajaq haddii kooxda Toffeeska ay garoonkeeda ka howlgeliso macalinkii hore ee kooxda ay isla magaalada ku xifaaltamaan ee Liverpool. sidoo kale isla kooxda ka dhashay Premier League ee Tottenham Hotspur ayaa ku dhow in saacadaha soo socda ay u magacowdo xilkeeda tababarnimo macalinkii hore ee kooxda Roma ninka reer Portugal ee Paulo Fonseca. Directorka cusub ee kooxda Tottenham Fabio Paratici ayaa wada hadallo horumar laga sameeyay labadii maalin u dambeeyay la yeeshay macalinka reer Portugal waxaana wararku sheegayaan in labadii dhinac ay isku fahmeen wax walba waxaana macalinkii hore ee kooxda Shakhtar Donetsk uu saxiixi doona heshiis 3 sano ah uu ku joogay garoonka Tottenham. haddii heshiiskaasi si rasmi ah loogu dhawaaqo waxa ay ka dhignaan doontaa in macallimiinta reer Portugal ay isu dabamareen shaqooyinkoodii hore. ugu dambeyntiina kooxda Arsenal waxa ay soo cusboonaysiisay doonistoodii weeraryahanka kooxda Real Sociedad iyo xulka Sweden Alexander Isak. wiilkan Swedishka ah ayaa xil ciyaareed wacan ku qaatay La Liga sanadkan waxa uuna u muuqdaa mid bartilmaameed u noqday kooxo badan oo reer Yurub ah balse xiisaha Arsenal ayaa ah mid qasan. sida ay qordayta Athletic kooxda Borussia Dortmund oo horey xidigan uga iibisay kooxda reer Spain ayaa haysata dooqa koowaad ee saxiixiisa waxa ayna kaliya ku heli kartaa 30 milyan oo euro waxayna midaas adkeynaysaa in si fudud dalab ay u soo gudbiyaan kooxaha waaweyn ee Yurub. balse warar hoose ayaa sheegaya in naadiga Gunners-ka ay si hoose kala shaqeynayso kooxda reer Spain in ay meesha ka saarto qodobkaas taa oo fududeyn karta in xidigan ay si fudud ku keento gegada Emirates. Arsenal ayaa u muuqata mid raadinaysa weeraryahan cusub inkastoo kooxda ay weli ku sugan yihiin 4 weeraryahan. barnaamijkeena galabtana waa inaga intaa. halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha waa channel cusub oo ugu talagalay in idinkugu soo gudbiyo warbixinadii ugu dambeeyay kubadda cagta caalamka. dhegeysta ama daawada haddii ay ku qanciyeen warbixinadeena fadlan subscribe iyo like kanaalka wixii taliye tusaale ahna inuu ugu soo gudbiyo commentiga. mahadsanidin.